aragti wacan daawadayaal anigoo ah Farxiyo Khaliif ku soo dhawaada Farxiyo Khaliif Show aad kala socotaan farxiyoshow.com caawa waxaan joognaa oo xaflad aad u heer sare loogu dhigay magaalada Minneapolis oo aan ka soo qayb galnay oo ah wasiirkii hore ee amniga iyo xiriirka caalamiga galmudug Dr. Umar Mahmoud Roble Suri ku soo dhawaada Farxiyo Show deegaanadaas dadka degan inay intay isku yimaadaan maamulka ku midoobaan ka wada shaqeeyaan wada dhisaan wada horumariyaan magacuna kuwa qorna looxal maxfuud muxuu ahaa wadamo badan oo magacyo lahaan jira hadda laga bedelaa jira magaalooyin magac kale lahaan jira magac kale hadda loo bixiyaa jira waa la bedeli karaa magacyada waa la bedeli karaa muhiimku waxa weeye dadku inay fahmaan in wax la isku darsado oo deegaankan oo dhan hal maamul ka sameysmo waa central regionska ayada waxaan rabnaa inaan ku gaarno maxaa ahayd midii kale oo Soomaaliya ku soconnaa meesha ay too galkacay mar rabnaa inaan fadhino ummadda Soomaaliyeed baa rabnaa waa 9 milyan tuulo yar bay ku wada xarootaa waxaan rabnaa Soomaaliya inaan raadino oo midnimadii Soomaaliya la soo celiyo dalkii Soomaaliya la soo celiyo walaaltinimadii Soomaaliya la soo celiyo ayada loo socdaa haddii bishankeenu uusan meesha fog ahayn midkaan yarka ana ma soconayo wax badan ma socon doono waxa weeye muxuu ahaa sheeg meel uu ku banjaray ayada la rabaa marka in laga shaqeeyo taasna halkaas aan u gudbahayaa diaspora the role of diaspora كانت الدياسبرا كانت الدياسبرا بان لو كان بكو دسنه هيا دلك الصومالي وحو كدسن yahay diaspora wuxuuna ka dhisan yahay diaspora waxa Soomaaliya dumiye waa diaspora waxa Soomaaliya dhisana waa diaspora dhaqaalaha Soomaaliya gaara income source Soomaaliya 80% ma aha xoolaha dhoofin jirnay waa lacagta dibadaha ka timaada Soomaaliya waxa laga dumiyaa diasporaha oo diaspora haday lacagtii fikirkii iyo midnimadii iyo walaaltinimadii haday ku soo biiriyaan dalku waa dhismi lahaa waxaad arkaysaa diaspora inay meel kasta kala qaybsan yihiin oo midnimadoodii ay kala dhantaalan tahay Nelson Mandela waa taqaanay 29 years buu xabsi ku jiray waa ka soo baxay markii uu ka soo baxay eray xikmad leh buu yiri wuxuu yiri united we win haddaan midaysanahay waa guuleysanaynaa divided we lose buu yiri haddaan kala qaybsanahay waa lose garanaynaa ama waa khasaaraynaa waxaa la rabaa marka conflict waa dabeecada bini aadamka laakiin wisdom baa looga hortagaa wisdom haddaan soo ku jirin conflict ma ka hortagi kartid wisdom kuna waa inuu kugu hago conflict inuusan idin kala daadin oo midnimada inuusan kala dhantaalin xikmad baa la rabaa waxaa la rabaa qurbaha diaspora ay joogaan inay ka faa'iideystaan oo dadkii gudaha joogo ama aan tacliin baran ama aan waaye aragnimo lahayn oo adduunka horumaray iyo sida uu ku horumaray aan ogeyn waxaa la rabaa idinka inaad ka duwan tihiin waxaa la rabaa inaad example u noqotaan midnimada iyo wadajirka waana midda United States lagu dhisay waddankan lagu dhisay yahay aad joogto milyan waa waddankan ku nool wax isahaystaan arkimis kulli unaas masrabo qof kasta wuxuu ku mashquulsan yahay dantiisa iyo magaciisiisa meesha anagu waa isku mashquulsanahay arrintaas ragga gudaha ka shaqeynaya wada dhaawacaysa waxay keenaysaa dib u dhac anigu maamulka kuma jira hadda idinkula hadli maayo magac wasiir ama xil muxuu ahaa sheeg
من هذا الكامبين في شرنا يصير الآن أخش شيء سنة كامبين كريس كان بيشتري صواري بيشتري ديفيد كاميرون برا أنا مقصود كوصلت برمنغهام magaalada degan Ingiriiska waajibta waqti aan activist ahaa sanadihii 2005 marka warkaan suuqa meelaha la wareejinayo waxaan rabaa inaad meesha laga saaro anigu xil ma hayo هذا حل ما هيو من قفنا حلكم ما هيستو منا حل دقمكم ما هيستو منا حل قولكم ما هيستو حل وزيرنكم ما هيستو حل مدحوينكم ما هيستو عد أوحكم هيستو لما لكن واحد ترى بوينت أنا كويس تتكاتر أنا واحد قبلنا وحل قبطه يانا اسكرافين هل وضع شقيه دقان يا مامل كقلب يا دقان يا صومالي بدهان هل لقى وضع شقيه أيضا تدقس كويس لنا مركز دياسبرا وحرمنا إن نحن وحنا كجدبنا تايم كبني آدم كوا حلا إذا أما خير بكم مشغول سيء أما الشر أما هرمر بكم مشغول سيء أما وحيالات تبدع كيري بكم مشغول سيء قف كل راس بكم مشغول سيء وقصد قف كل مشغول سيء وحرم أنا كم مشغول نو هرمر كا سما فلك أنا كم مشغول نو دل كين ونو بهية وحرم أنا كم مشغول نو اسمها دل كينا دجان كينا مد جود iyo mid gaar qofkii shakhsi ahaan meesha intuu yimaado asagu naftiisa uu qabto galmudug wax uu qabtay Soomaaliyeena wax uu qabtay qodobkaas baan ku soo celinayaa midnimo hal laga wada shaqeeyo warka haduu bato nafarka ka tagaleey waxa rabaa marka soosan nafarku uga tagin warbixintii waa idin soo gabagabeeyay intaan ka xasuusanay waxaan rabaa inaan ku celceliyo waxa aan jecelahay oo ah inaan idin mahad celiyo waxaan u mahad celinayaa intiina fadhida kaliya maaha waxaan u mahad celinayaa intaysan u suurta galin inay ka soo qayb galaan kulankan oo waraalaha ah oo galmudug ah oo Soomaaliya ah dhammaan baan u mahad celinayaa Minneapolis aad baan ugu faraxsanahay waxaan filayaa waqti dheer inaan xasuusnaan doono sida sharafta leh ee quruxda badan oo wajiyadiina quruxda badan aad igu soo dhaweyseen oo waqti badan xasuusnaan doono baan aad ugu faraxsanahay marka waa mahadsantihiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما كنتين يا ربي احنا سنين نوقف فريست هذه كل الماس waxaan noo dhima laba arrimood kow horta marka ugu horeysa waana loo duubay programka Soomaaliya because waxaan rabnaa cumar xataa markuu naga tago oo gaal xali meelaha sadaan isaga soo ceshanaa badan waxaa dadka maanta fursad u helayna ay arkaan oo dhageystaan oo mataqaana aan u soo celino laftigooda waxaan sameynaa laba arrimood gabdho horta maanta ma hadlin waxaan wahaynaa microphone oo wireless gabadhii rabtay inay kelmad tiraahdo meesheeda ugu geenin
هاي عمر إن السلامه سوينا حسوس أنا على قلبه وأنا قولن رأي دمر بعد مرة هنا السلام تهور مرسل دون هنا سوي الفار مرسل دون walkii waxaan rabaa inaan weydiiyo wuxuu noo sheegay in deegaanka ka shaqeeyay muddo badan mar badan uu ku soo celiyay iskuulaad iyo jaamacado laga dhisay gaalkacyo deegaanka ma gaalkacya mise deegaanka waa weyn meelo badan wax ka qabateen بسم الله الرحمن الرحيم waxbarashada aan ka sheekeynayo waxay ahayd waqtigii galmudug la dhisay iyo intaan galmudug la dhisin waqtigii intii galmudug aan la dhisin ama galmudug ka hor barnaamijka waxbarasho aan wadnay kuma ekayn gaalkacyo ama deegaanka mudug balse xamar baa qayb ka ahayd oo iskuulla waxbarasho تعليم عن كهر قلبي مدة قلبي بعد سنة هاي برنامج كم وحبر الشوق ومعمولهان عن دقائق وشغلين كمان كان قال كعيو ومقال مدة معمول كم دولة قلبي الستيت أصيش برنامج وحبر الشوق ما دام أنا شغلنا international community سيدا هيئة United Nations كيونيسيف لينا أقابل سن تعليمته وحن قاسيني إلى عابد واقع عابد واقع وعن كمدة هين دقانا سيدا توسكا مامل كوكو وهو سيماتو مامل كقلمدو ستيت inkastoo ku magaca ka mid tahay magac ahaan laakiin anagu wixii samafala ama barnaamij samafala ah oo caalamku noo fidista ku dadaalayna inaan gaarsiino dhammaan ilaa beledweyne inaan gaarsiino waa ku dadaali jirnay waana gaarsiinay xaqiiqadii meelo badan waa gaarsiinay ama dadka joogaan ku casbinay gaalkacyo waxaa jira barnaamij tababar macallimiinta oo 1500 oo macallin aan ku tababarnay gaalkacyo tababar ugu dhamaaday waxay ka yimaadeen ilaa beledweyne waxaan u fidinay facility-gii waxaan mashruuca ka soo diyaarinay UNICEF waxaan wargelinay deegaanadaas oo dhan central regions oo dhan baan muxuu ahaa iyo sheegan wargelin kuma salaysna waxqabadkeenu hal magaalo laakiin Soomaaliya oo dhan inaan gaarsiino hadeerna gaar ahaan inaan gaarsiino deegaanada gobolada oo dhan waa gaarsiinaa horumarkuna kuma xirna siyaasadda barnaamijka horumarka ee caafimaadka waxbarashada kuma xirna siyaasad kuma xirna dalka Soomaaliyeed dhammaan inaan wada gaarsiino intii aan ka gaarno baana qorshaheena uu yahay waxaan filayaa su'aashaadana inaan intaas ku soo koobi doono jawaabteeda aad baa u mahadsantihiin Dr. Cumar aad buu u mahadsan yahay su'aasha sidoo noogu faahfaahiyay waxaan u malaynayaa waxaan maqli jirnay macallin jaamac aabihii waxbarashada gobolada koonfureed maxamed axmed calina aabihii waxbarashada gobolada waqooyi Cumar Suuri marka hadalka waxa aad ii taabtay in la yiri iskuulka ugu horeeyay ayuu ka dhisay deegaanka marka aabihii waxbarashada gobolada dhexe waa maasantiin su'aalihiina intaasna ayaan kusoo gaabsanaynaa waxaan noo haray sawirkii iyo ismaca salaameyntii aad iyo aad ayaad mar kale u mahadsantihiin intiinii xafladan ka soo qayb gashay dadka Rochester ka yimid kalimadda ugu dambaysiinana waxaan siinaynaa abukaata Cabdiraxmaan eragoo noona ducaynaya nala dardaarmay waa maasantiin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياتنا على هذا نص تلقينا الله marka horeyso waxaan salaamayaa magaca islaamka marka labaadna soo dhaweynaya walaalkeen Cumar
ومهل علني وربحنتا بعدين كان عندي مهل علني سيدا ونعكسنا وشرفتين هذا ضدك أفكي وعقبته المدن هاي إن لو مهل عشرات ليش بقيتها مركب مهل علنينا لواني ما نسوت يعني ومن الوضع عوي شكان روح الضان له وعمر الوسو الأولاني وربحنته وسو الدياسري طبعا ضدك قلبي أنت هو يحب النايم على كذا ما بقاطع يمه وعلى فلوحنت من بوجه المقالة واحد على سعتان ومرينا إياه اللي عمر فود ماشى ويمي أنا أصدق شفت بعدين يقول سعودي وعلى شيء حتجنين وشفت نومي يعني كل شيء عمر من يفوت له وضم يهود النقضي سنين السما وضع فكرة تقدم ومبدأ لكم جاولني هرت إلهي هرت أنا جدا وين ولكن وآخرها لجنينا على خلطان صور وحنا غصة من اليوم وتذكر هناك سن جد جبنين سوا كحنا أنا حاط سيني متاس مركا سودون هذا والأركي هذا أنا وأباهنا هاي مدورة أبارك سوا كويسة بالكلام وقالت عمر قلت عمر نيجي وين عرض لا أسوي أرضي وأنا بدون أحمد بركة أي أرضك بركة بركة هذا ما يعني بقى يمان واحد نيجي واحد يدشي حلكة يا ولد الساري معه إفورت مسكينين وعمل تدشي من يفضلني وأنا يروي أرضي كان تردارين كودن بينا قادمه مدنمو يوحقب مدنمو قلبلو مدنمو الصوالية مدنمو وحقود نوبلو إنا عوالي كقادمو وأن دقان كينا يدد كينا قد يدلو تاس بلدنا بعدها مرة أنا وأنا أدخل عنا قدر مش تشوفه دعي بالي دعاءنا وحالي واحد صار ترى جروب مرة إلهي أنا كوري إلهي دم من هتعرف إلهي مستقبل كان وناك مدة يضل كان إلهي أنا جالس يبقى ترى إلهي أنا قصار عمر ما هو دارمي هذا هو يجري ما أنا وعندنا حلو ما يشتغل عندنا حطون من ماجي لكن عمر ما هو عصرنا بعد ما صار فرق يقول بالله بيقولي له بهني هاي مش كسي وراه وده يعني كل أبطال أو أسوأ مرة حلان يعني إنه سنفرق سي وضو وأفضل أنا ولا كوش تعبان أنا جيل ولا لو ما زلتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كده بنصر وكان
Thank you.
gabdhaha keliya oo maadsantii gabdhaha بسم الله الرحمن الرحيم فرحية شو آد بان كاغا مهد علنا هيا مستر نانيستا الصورة هدان كوكول عزداد أوكي؟ سوري وانا نستاذ بس أوكي دكتور عمر محمود روبلي socdaalkaaga oo aad ku soo gaartay waddankan Mareykanka qaas ahaan magaaladan Minneapolis muxuu ahaa anigu dalkan Mareykanka waa runtii waa markii koowaad oo aan imaado gaar ahaan magaaladan Minneapolis maadaama aan muddo badan dalka Soomaaliya aan ku joogay oo deegaanka Galmudug gaar ahaan aan shaqooyin ka hayay oo xil ka hayay waddankan ay ku sugan yihiin jaaliyadda Soomaalida iyo jaaliyadda Galmudug inaan u imaado oo soo booqdo oo soo salaamo oo warbixinta wixii deegaanka ka jiray oo xaqiiqadaha aan u soo gudbino aan kala war qaadano ka bacdina wixii muxuu ahaa talooyin ah iyo muxuu ahaa barnaamijyo ah oo aan gudbin karo deegaankii dib ugu celin karno inaan muxuu ahaa aan
aan baan u imid saas ulajeedadu waxaa kaloo farxi aan qayb ka ahaa wafdigii madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug state mudane maxamed axmed caalin ka mid baan ahaa inkastoo asagoo hadda uu safar shaqo ugu gudbay dhinacaas iyo washington marka Mr. Roble hadday waxaan maqlaay maraad dhahaysay intaasna inaan taabtan rabaa Soomaaliya cidna uma maqna ceelna uma qodna marka taan ognahay Soomaali dhibaato badan ka jirto marka wadanka dhan gobol ay noqotay saad ogtahay hadda galmudug ka socota madaxweynaha galmudugna waa tuuna la joogayaan dhexdaas marka dhibaatada Soomaaliya ka socoto siba baahida abaaraha ka socdaan wadamada adduunka dhan ay wada arkeen ay soo u gurmadeen marka dhinaca abaaraha markaad fiirsaan sida adiga oo wasiirkii hore ahaay iyo madaxda hadda ka timid galmudug socdeen sad u aragtaan Soomaaliya sideedaba qaas ahaan والله runtii waxaan rabaa inaan iraahdo waa nasiib darro xaaladda Soomaaliya ay ku sugan tahay waqtiga hadda xaadirka ah xaaladaasna runtii muxuu ahaa waa run cidina uma maqna ceelna uma qodnay Soomaalidu tiraahdaa dadkii iska lahaa dalkan Soomaaliya oo la rabay inay ka badbaadiyaan dhibaatada inay ka badbaadiyaan waa dadka hadda dibadaha jooga sida hadda dadkan diaspora oo halkan waxaa jooga aqoontii bulshada Soomaaliyeed baa joogta waxgaradkii baa jooga marka haddii aysan dadkii dalkii ku laaban oo deegaanadii aan lagu laaban oo dhibaatooyinka jira gacan aan laga geysan oo aan la midoobin midnimo haddaan la imaan ummadda Soomaaliyeed oo aysan ku midoobin dalkooda siday u badbaadin lahaayeen oo dhibaatada jirta ay uga badbaadin lahaayeen waxa weeye cid kale oo hadda hawshaas u qabanaysa ma jiro adiga gurigaaga cidina ku dhismaysa adaa laga rabaa inaad dhistid taa labaad abaarahan waa runtii Ilaahay baa keenay oo muxuu ahaa Ilaahay wuxuu keenay ummadda u keenay lama diidayo hase yeeshee waxaa jira qayb baan ka nahay maxaa yeelay dalkii geedihii baa la jarayaa dhuxul baa laga samaynayaa geedihii annaga waxaan abuuraynaa muxuu ahaa nabaad guurkii iyo bee'adii inaan muxuu ahaa aan wax ka badalo dadka aan wax ka bedelno oo aan dhirtii badbaadinay ayadoo qayb bay ka tahay abaaraha oo muxuu ahaa haddii geedkii xooluhu cun lahaa la jaro haddii ceelkii muxuu ahaa la cabayay muxuu ahaa aan laga faa'iidaysan taasna way jirtaa marka waa muhiim weeye hadalkaas hadda aad ku soo celisay oo cidna uma maqna ceelna uma qodna marka mid kale aan rabo inaan ku weydiiyo waxa waaye ayaan dhaxdaas hadda bishaan aan soo dhaafnay September 5teeda saan u malayo United Nations ka envoy ka socda oo Soomaaliya u qaabsan Mr. Mahiga wuxuu dhexdhexaadiyay Puntland Mr. Mahmoud Frole iyo madaxweynaha galmudug Mr. Allen marka heshiiska ay gaareen waxay ahayd inay wada heshiiyaan peace oo mustaqbalka soo socdo sidoo kale looga hortagi lahaa dadkan insurgents-ka ah sida al-shabaab in militants-ka kale oo ka buuxaan area surrounding galmudug Puntland xibin iyo xeeb dhinacyadaas heshiisyada la gaaray sidoo aragtaa ima u malaysa inay wax sii socon doonto noqonayso aan heshiino waa aan midowno aan heshiino waxa weeye wadankeena aan badbaadino Puntland iyo galmudug haddii ay ku heshiiyeen ay ka heshiiyeen wixii khilaafaad oo jira waxay dan ugu jirtaa ummadda Soomaaliyeed ayadaana la rabaa in lagu adkaysto oo la sii wado aniga ilaa hadda intaan ogahay galmudug madaxweynaha iyo shacabkiisa iyo dawladda waxay diyaar u yihiin wixii heshiis ah oo la gala in la hirgeliyo wax caqabadana inaysan dhinacooda ka imaan maxaa yeelay haddaan la heshiin dhibaatada hadda Soomaaliya ay ku jirta ka bixi mayso ummadda Soomaaliyeed waa mid khilaafna in la sii abuuro maahana heshiisyada in la sii xoojiyo way taas baa mustaqbalkeena ku jira taas buu waxa ku jira mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed marka waxaan rajaynaynaa awalba khilaafku khilaaf saas u xoogan ma ahayn dadku wax yar bay isku qabteen oo muxuu ahaa waa degaan iyo waxba iska jirjira ayadiina waa la dhameeyay in loo gudbi doono oo uusan khilaafku soo laaban baan ku rajo weynahay haddii yimaadana hadda waa la xalinaya dadku xikmad iyo caqli buu leeyahay waa khasab isma hortooy hays halayn bay Soomaalidu tiraahdaa marka muxuu ahaa isha heshiiskaas uu shaqayn doona insha Allah okay taas kulay waa wax aan si ogaan doono kulay heshiiskii waxyaabihii waxaan rajaynaynaa inay mid xoogsato ay noqoto mid burcad badeeda aan galno haddii waxaad ka sheekeynaysaa sida internationalka dad badan eraban inay ka ganacsadaan marka badanaa dadku waxay dhahaan really Soomaali ma aha dadka oo burcad badeedkan waxa gadaal ku jiro waxaan loo jeedaa kale inay Soomaali tahay waa xaqiiqo weeye wax badan baan ku hawlanaa anigu in muddo ah international community waxaan kala shaqeynayay sidii looga hortagi lahaa burcad badeedda waa dhibaato jirta caalamkana dhibaato ku haysa dadka Soomaalida dhibaato ku haysa maxaa yeelay dadkii Soomaalida khayraadkooda badda ka faa'iideysan lahaayeen kama faa'iideysan karaan
caalamkii commercialka ahaa oo maraakiibtii badweynta marayay oo badweynta xeebaha Soomaaliya marayay dhibaatooyin badan baa soo gaarahaya oo dhibaatadaas soo gaaraysa badeecooyinkii la waday oo ganacsiga ahaa oo loo waday xataa Soomaaliya kuwii loo waday markii la dhibaateeyo maraakiibtii waxaa la siyaadinayaa muxuu ahaa ii sheeg caymiskii baa siyaadaya qiimihii badeecada kacaysa ummadda Soomaaliyeedna way soo gaaraysaa marka dhibaatadaas way jirtaa laakiin ilaa hadda annagu talooyinka dhinaceena aan soo jeedinay caalamka intiisa badan lama fahmin maxaa yeelay burcadbeed sideedaba waa laba qaybood qaybna waa qaybtaan badweynta ka kalluumaysanaysa oo dhibaataynaysa khayraadkii ummadda Soomaaliyeed ee badda ama kuwa sun ku duugahaya ama kalluunkii sida qaladka muxuu ahaa u dhibaataynahaya qaybna waa dhalinyartan Soomaaliyeed oo waddankan dawlad la'aanta iyo shaqo la'aanta iyo muxuu ahaa abaarahan iyo dhibkan markii waayeen fursado kale oo nolol marka dhalinyartan shaqo la'aantu ay hayso oo nolol maalmoodkii ciriiru ka galay oo waddankii dawlad ilaa kama jirto wax soo saar ma jiro waxa weeye markay fursado kale ay waayeen bay waxay aadayaan annagu marka waxaan niri hal la xalliyo dalka gudihiisa laga xalliyo dhalinyarta dhibaatada muxuu ahaa qaybta ka ah shaqaha loo abuuro meesha hadda caalamku leeyahay hal la xiro hal la dilo annagu waxaan leenahay hal la badbaadiyo dhalinyarta hal la badbaadiyo shaqaha loo abuuro mashaariic loo abuuro tababar hal la siiyo laakiin caalamku wuxuu leeyahay hal la xiro hal la dilo muxuu ahaa xabsiyo hal la geeyo hal la maxkamadeeyo ayaduna taasna waa negative weeye waxayna sii encourage garanaysaa dhalinyar kale inay badda sii aadaan maxaa yeelay ma haystaan alternative kale macnaha fursado kale ma haystaan waxaanad ogtahay boqolaal dhalinyartaas ka mid ah ayagoon maraakiib afduubanayn bay badweynta ayagoo raba inay aadaan waddamo kale u gudbaan ee badweynta ku dhintaan marka cabsi ma hayso badweynta kama hayso sidaas darteed annagu waxaan soo jeedinay in la badbaadiyo dhalinyartaas oo tababar la siiyo fursado muxuu ahaa shaqo si ay u helaan Dr. Umar Roble kulley ma u maleynayo maanta intaan yar aan ku hadlayno inaan waxyaabo badan ka hadli karno marka Soomaaliyana waxaan u arkaa waa wax aad iyo aad loogu mashquulsan yahay dhinaca baahida dhinaca badaha dhinacyo badan marka waa wax sii socon doonto oo hadda kadibna aan arki doono many TVs or newspapers aan ka arki doono marka magaalada Minneapolis aad iyo aad lagu soo dhaweeyay caawaasan u jeeday farxad badan ee dadka ka muuqata aragtida iyo imaanshaha u timaaday community-gan oo Minneapolis Soomaalida ku nool marka maxaad ku dardaarman lahayd aad u aragtaa Soomaaliya future-keeda horta ugu horeyn mar labaad waxaan u mahad celinayaa bulshada ama dadka jaaliyadda Soomaaliyeed halkan caawa igu soo dhaweysay ama inta kale oo banaanka joogta oo muxuu ahaa magaalada degan oo aan fursad u helin yimaadaan adiga laftigaaga waa ku mahad celinayaa qayb weyn baad ka qaadatay oo muxuu ahaa meediyaha waa qayb muhiim ah waxaan rabaa inaan kula dardaarmo Soomaali waa walaalo waa hal qoys maaha quruumo kala duwan maaha Soomaalidu waa hal qoys waa hal mid dhibaatada Soomaaliya oo dhan bay haysaa wiilka badda ku dhimanaya waa Soomaali midka abaartu dilaysa waa Soomaali midka xabsiyada muxuu ahaa wadamada kale ku xiran waa Soomaali dhibkood dhan waa Soomaali waxay ku kala qaybsantahay ma aqaan hadday dhibkii ku midaysan tahay waa inay midoobaan waa inay horumarka ku midoobaan fursadaas kaliyaana Soomaalidu cabdikariin oo ka soo qayb galay xafladan caawa oo ganacsada weyn magaalada Minneapolis oo aan ka wareysanayo Dr. Umar Maxamed Roble caawa xafladan loo dhigay ku soo dhawaad farxiisho. Thank you very much Farxi. I'm very happy wareysigaaga kale ka duwan yahay. Thank you very much. waa mahadsantahay xafladan caawa sida u aragtay sida loogu soo dhaweeyay Dr. Umar Roble. aad iyo aad aan u faraxsanahay raggii soo qaban qaabiyaan kamid ahaa Umar Suuri waa nin halgamaa ah oo xagga waxbarashada iskuulaadka isbitaalada gobolada dhexe ka shaqeeyay waxaan u arkaa inay munaasab ahayn si fiican u dhacdeen marka Dr. Umar Roble missionkiisa muxuu ahaa uu maanta u yimid Minnesota aad ka wareysatay missionkiisa waxay u timid inuu kamid ahaa delegationkii galmudug oo hogaaminaya madaxweyne Caalin qorshuhuna wuxuu ahaa inuu xoojiyo message-ka madaxweyne Caalin waa lagu guuleystay ma sha Allah wuxuuna ahaa wasiirkii hore iskaashiga caalamiga dawladda galmudug aqoonsiga guud ee galmudug ee Kesh International Community-ga waxa waa ninkii aabaha u ahaa waa ninkan saan u arkay wuxuu aad aga hadlay burcad badeedka Soomaaliya saan aan badanaa dadka dhahaan waxay leeyihiin
really Soomaali ma waxa ka dambeeyay waxaan waa horey fadhiyaan laakiin gadaal waxa sidoo sheegay kala dad badan oo waxa jira international oo aad iyo aad aga bic mushtara oo u arkan billions of dollars iyo qashamadan Soomaali lagu daab xeebta dhinacaas ma nooga hadli kartaa run ahaantii asaa taabtay burcad badeedu waa laba nooc kuwa maraakiibta isbaara u dhigta iyo kuwa badeena ku shuba sun isla markaana kalluunka qaata marka adduunku waxa moodaa inay la dagaalamayaan qura kuwa masaakiinta oo maraakiibta isbaarada u dhigta laakiin waxaan qabaa aniga inay ka daran yihiin kuwa sunta aasa iyo kuwa kalluun kuwa fiican la baxa marka waxaan u arkaa inay tahay trade caalami oo dadka oo dhan ah international community-ga iyo Soomaaliya labadaba سيد واركستا مستقبلك صوماليا انتانا aan ku soo koobin hadalkan waxaan u arkaa mustaqbalka Soomaaliya si fiican ay leedahay maamul goboleedyadu waa xoogeysteen dawladda Soomaaliyeedna waxay ka adkaatay shabaab waxaan u arkaa Soomaaliya inay bilaabatay Soomaali cusub inay bilaabatay and I'm very happy wareysiga kan xiga farxiyo waxaan ka rajeynayaa magaalada Muqdisho aan isku wareysan insha Allah oh I hope so let's go yes thanks for talking to me thank you bye bye waa mid kaliya uga gudbi karaan ugana bixi karaan dhibka Soomaaliya ka jira khayraadkii waa haysanaa wadankeena waa wadan barwaaqo ah weey ummadda inay garwaaqsataan la rabaa oo imidoobaan oo kala qaybsanaanta ku bees garaysan waxyaalaha la aqoonaan waxaan raahdaa invisible enemy cadow aadan u jeedin waa ummadii ku dhex jira in ay inta dhinac isaga riixaan ay midoobaan oo horumarka iyo ka wada shaqeeyaan wadankooda runta waa cadow aan loo jeedana ku jira Soomaaliya marka Dr. Umar Roble aad iyo aad u mahadsan tahay interviewgan Farxiyo show siisay waa mahadsan tahay aad baa u mahadsan tahay Farxiyo show iyo TV-ga Universal oo popular ah oo aad u dhageysano TV-da aan runtii aad u xiiseeyo waa mahadsan tahay thank you daawadayaal barnaamijkan halkaan ayuu caaw noogu eg yahay anigoo Farxiyo Khaliif ah farxiyoshow.com thank you bye Amira Come on, go وحنا عاو قصر وكذا جينا يعني